iyadoo weli ay meeshooda ka sii soconayaan qaylada shacabka ku dhaqan gobolka Salal isla markaasina ay isa soo tarayso cabashooyinka ay warbaahinta madaxa bannaan u soo marinayaan xukuumadda Somaliland dadka deegaankani ee ku aadan maamulaha kastamka magaalooyinka Saylac iyo Lowyacado Cabdirasaaq Aadan Yuusuf oo ku magac dheer Faysal Magafe odayaasha deegaanka Bariisle ee shirkan jaraa'id ku qabtay isla deegaankaasi ayaa inta badan waxay carabka ku adkeeyeen in ay wax ka qabato xukuumadda Somaliland waa kan iyaga oo ka hadlaya arrimahaasi hadda sii socono iyo hadda soo soconaba hadii aan leeyahay tigada marto Djibouti ba ku xulanahay oo wadada Djibouti ku xulan oo warqoon Djibouti ka dhigtay oo dawladna u shaqeyn la kale u shaqeyn baan oo caana yar iyo badda yar waxa uu Djibouti ka taga oo halka Djibouti ku xulan hadda sii socono iyo hadda soo soconaba oo hadana lagu xukumay lagu dhibaateynay waa intuu ninkaasi dhulka yimiday inta kalena ma aha intuu ninkaasi dhulka yimiday weeyaan waxa u baahanay in naga qabto dawladdu Soomaaliya naga qabato ay wax ka qabatay naga qabato imikana waxa noo sheegay in dadkii baaliis ka horkeenayo oo laba u kala saarayo taasina wax fiican ma aha wax dad iyo dawlad ku fiican ma awalna waxa weeyaan wanka kasta kasila ee Faysal la yiraahdo waxa soo dhan waxa noo wacan wasaga weeyaan anagu dad imika soo degamayeen dad waxa nahay ilaa gumaysiga marin baamiye markii la oranay kaarka cadaa ku shaqeynay yaa marinay waxa dhici kareemaan adduunka wax lagu arkaa lagu maqlaana maaha mar yeelana macaarad ba ka horjooga anagu faataha tare waxa marnaa tikada waana marinay awalba waana mari doonaa doolada tiibu doonaya inuu maanta naga joojiyo hadda khuruujnay tujir waa marana ku dadkaygu hadii rag iyo dumar buu marnaa rag ugu maray wuxuu ku maraa waxyaabaha badda qaadna haweenkaygu uu maray wuxuu qadaa aanilay caano iyo qaata kolka rag iyo dumar ba halka wadada dadkii mariyay cuna qabatin xoog lu saaray wuxuu ku xakumay dadkii aad baadana Djibouti afar la tasaabu gala anagina saabu naga hortagay dadkayga cod dhaqashada halka tagan anaga dadka abaaruhu ay ku heleen geedhaad ilaa degmada Bariisle ilaa nawaaxida Lowyacado ka sokaysan abaartu si xoog leh iyay noogu xoogaysay wax macaawimo wax dhibaatada naga caawiyay ma jiro intaana way haysatay abaarta dhibaatadaasina tur soo xoogaysanayso uunoo imaka ahaan haysata uwi macaawimooyinka waa la bixiyaa magaalooyinka uma la siiyaa annaga dixda Bariisle degmadeeda hadaan nahay deegaanka xoolo dhaqatada xoolay ka dhamaadeen hadaan nahay ciidiba dawladda Soomaaliland gargaar kama hayn gargaarkaana gargaar Ilaahay uu jiray gargaar bil aadan ma hayn dugaag uu nahaystaa adduunyada naga laqay oo naga dhameeyay oo abaarta noogu biiray cid alle cid wax nooga qabatay oo dhibaato oo naga dareeyay ma hayn waar waxa naga sii daran dhibaatada kale ee nagu haysata dariiqa dhibyarida aan ku mari jirnay hadda ka hor imaka ahaan $30 qof saangasida iyo qof caana sida ay ka baxayna ayna noqonayna oo dhig lagu hadii kala aqal ka gal ku jirna ilaa galabta ilaa caanaha ilaa saagada war anagu gariif baan hadii ka taaganahay qanac baan ka taaganahay dhibaatadii abaareen haysatay haday tahay noogu biirto anagu hadeed waan xanuunsanayna war hanana soo gaaro ninkan iyo anaga hanana kala gaaraan leen ninka Faysal la yiraahdo kashtanka Saylac haysta weeye dhibaatada inta la eg waxaan abaarta noogu daraya nooguna biiray war hadii Somaliland ay xasiloonideeda iyo nabadgelyadeeda aan korka hore ku daaqaynay imakana aan ku naalay maanta waxaan ka taaganahay qanac xoog la ka joognaa xagga yaga dalka Djibouti naga cili sharcigii aanu haysano hadii la nagu arko laga qaaday wixii oo dhan oo isagu Djibouti tuugala uu ka soo baxay adigana laga cilinayo wixii aad sataalka ku qurmeen waxaan ugu sheegay dadaan leeyahay toddobaad jir baan ahay aan cilmi bixin ilaa inta halkaas ku soo gaaray dawladii hadday jirtay maamul baa dadku leeyahay galay adduunku leeyahay galay tayada tan maanta joogtay Soomaaliland waxay leedahay dadku leeyahay anagu samaxayno sabab hada waxa sabab loo noqday ninka Saylac ka Saylac Faysal la afraad ka safanta ka tarka Djibouti galaya anagu wuxuu noqday kadroolka loo sinay kuna kadroolaya waxaan wali gumaysiga cadaa gaalka loo leeyahay Faransiis wala ma hayo laabiyana wala shicin oo jiin saarama soo eegay wixii wan lagu sheegay maanta ninkan lagu qabso cidaan ka tarsanay ma dawladda
marar dhowra oo aanu isku daynay in aanu wax ka weydiino maamulaha kastamka Saylac Faysal Magafe eedeymahaasi ay u soo jeedinayaan shacabka deegaanadani degmada Saylac ayaa waxa la noo sheegay in uu ku maqan yahay dalka aynu jaarka nahay ee Djibouti si kastaba ha ahaatee cabashooyinkan ka imanaya shacabka ku dhaqan gobolka Salal ee maalmahan bahareeyay suuqyada magaalooyinka Somaliland ayaanay wali wax jawaab ka bixinin xukuumadda Somaliland gaar ahaan wasiirka wasaaradda maaliyadda oo horay sharaf iyo karaamo weyn ugu lahay dadka ku dhaqan gobolka Salal waa Cali Xajar Somali Channel magaalada Saylac